tartankani oo ah mid sanad walba la qabto marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa soo socday muddo 4 maalin ah waxaana loo qabtay tartankani Quraanka Kariimka macallimiinta dugsiyada Quraanka Kariimka ee ku yaala magaalada Nairobi iyo nawaaxigeeda waxaana tartankani soo agaasimay isla markaana qabta mar walba mu'assasada Ansaaru Sunna ee ku taala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. masjidka Shariif Cabdinuur ee ku yaala bartamaha xaafadda Islii ayaa lagu qabtay munaasabadii lagu soo gabagabeynayay tartanka Quraanka Kariimka waxaana ka soo qayb galay culumaa u diin caan ka ah geeska Afrika, arday iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. ugu horeyn culumadii ka hadashay munaasabadani ayaa ka sheekeeyay faa'iidada ay leedahay in lagu tartamo Quraanka Kariimka. runtii arrin lagu farxo ayaa muuqanaya ilaahay ayaan ku mahadinaynaa nicmadan inoo hirgeliyay waxaan u mahad celinaynaa oo u shukrinaynaa oo in badan aan amaanayn dadkii u istaagay dadkaas oo ay u horeeyaan ama ay u horeyso mu'assasada Ansaaru Sunna iyo qaa'idkeeda Sheikh Cabdirasaaq waxa muuqanaya runtii wax lagu farxo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad oo hambalyeynay waan ku faraxsanahay ilaahayna ha barakeeyo leeyla wa nahaara waa u duceynaynaa muassasadan iyo cidii kasta ummadda muslimiinta inay wax baraan u istaagto Allah ha barakeeyo in loo duceeyo ayayna mudan yihiin mu'assasatu Ansaaru Sunna walibana haddana waxa lagu daahfuray jiil Soomaaliyeed oo macallimiin ah oo qiraa'aadkii oo inaga maqnaa soo bartay ayaa maanta lagu daahfuray annagana lagu karaameeyay inaanu marxaati ka noqono iyo goobjoog una ducayno farxadana aanu ma aragtay kala qayb qaadano ruuxa xaafidka ah oo kitaabka Ilaahay xifdiyo subhanahu wa ta'ala say diinteenu inoo sheegtay nabigeenu ina baray muqaddamu fi qabrigiisa isaga lagu hormarinayaa mu'assasatu Ansaaru Sunna ta'liimiyya ayaan Ilaahay ugu shukriyo subhanahu wa ta'ala inuu ilaaliyo xifdiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala. Sheikh Cabdirasaaq Jiir oo dhankiisa ka hadlay munaasabadani ayaa sharaxay muddadii uu soo bilowday tartankani iyo qaabka loo kala saaray macallimiintii ka qayb gashay tartankan. maantana quraankii intii ku tartamaysa 54 macallin ayuu number 1 ka galay haddana jaamacad Mahdi uu dhigtaa waxay ka mid tahay bashaa'irta waaweyn oo ku tusaya kitaabkan inuu Khalid yahay asagoo Nairobi University dhiganaya oo jaamacad kale dhiganaya ayuu haddana kitaabka Ilaahay 114 suuradood 6660 dheeraad aayad buu haddana number 1 ku qaatay sidoo kale ninkan qiraa'aadka number 1 ka galay oo riwaayat Hafs iyo riwaayat Shu'ba iyo riwaayat Duri oo min qiraa'ati Abi Amr number 1 ka galay waliba sheekhi Masriga ahaa oo imtixaanka ka qaadayay wuxuu yiri wax Allah la waxa haysan ninkaas la siiyo. gabagabadii munaasabadani ayaa waxa abaalmarino qaali ah la guddoonsiiyay shakhsiyaadkii galay kaalimaha hore. Cabdishakuur Farax Igale, Universal TV, magaalada Nairobi.